Hanta waxaa ka sheekeynayna libaax la dhaho Scarface. Libaaxaasi wuxuu libaaxyada kale uga duwanaa. Libaaxu meesha uu ku dhasho waa laga cayriyaa, odayga aabihiisa uu ka cayriyaa. Sida caadada ahna libaaxyadu kuwa lab waa la cayriyaa, kuwa dhadigna waa ay joogaan wuu haystaa. Sababta kuwa lab loo cayrinaya waxa ay tahay waxaa la rabaa in ay boqortooyo gaara samaystaan. Libaaxuna sidiisaba ahaanba wuxuu u samaysan yahay inuu boqortooyo leeyahay. Taa marka laga soo tago Scarface laakiin wuu ka duwanaa libaaxyada kale. Meesha aabihiisa cayrin lahaa, aabihiisu la dagaalay, asagaana aabihiisa cayriyey. Waana libaaxii ugu horreeyay oo meeshu ku dhashay ka taliyey. Scarface waxa uu ku noolaa keyntiisa, wuxuu ahaa libaaxa inaba caadi ahayn oo dagaalyahan ah oo aan la fahmi karin xataa qaabka uu dagaalamayo. Maalinkii dambe waxaa jiray libaax la dhaho Magwata kaasoo ka talin jiray Tanzania. Marka waxaa dhacday inay isdagaalaan libaaxaas iyo Scarface. Waxa ay dagaalameen dagaalka ragga. Weliba wuxuu qaatay waqti aad u badan, waana meesha ugu baxay magaca ah Scarface, waana dhaawac ka soo gaaray isha. Libaaxa Scarface iyo bahalkii markay dagaalameen waqti badan dagaalamayeen, al ultimo waxa adkaaday Scarface, dhabarka ayuu ka jabiyey. Sida caadiga ahna libaaxyadu markay isdagaalaan, libaaxa xoog bata wuxuu dilaa kan kale, dhabarkuu ka jabiyaa si nafta uga baxdo. Scarface boqortooyadii wuu la wareegay. Scarface haddii aan ka sheekeyno xaasaskiisa, wuxuu qabay 2 xaas buu lahaa. 2 xaas mid ka mid ah waxaa dilay dhurwaayo baa dilay. Libaaxan waxaa is leedahay asagoo dhan waa Soomaali. Dhurwaayadii dilay habeen buu baxay 113 dhurwaa uu soo dilay. Isku dardar dhurwaayada uu xaaskiisa ugu aarayna waa 400 oo dhurwaabo u dilay. Scarface xaaskiisa labaad waxaa dilay xaasyo intuu xanaaqay webigii keynta uu ka talinayay ku yaalay. Waxa uu ka mamnuucay waxii xaas ah, sababtoo ah kii soo baxaba wuu dilaa. Heer webiga qaybta oo asagu keynta ka taliyay xaasyadii ay dhanka nabaad guureen. Scarface waxa uu ugaarsan jiray jeerta tan lab buu ugaarsan jiray. Jeerta inta aragta teeda lab oo ninkaaba ugaarsan jiray sababtoo ah hilibkeedu jeclaa una uu dili jiro waa cuni jiray. Scarface waxa uu ka talinayay halkaas 14 sano wax ku dhow buu ka talinayay keligiis. Xataa markuu dhimanayay wuxuu u dhintay si sharaf leh, asagoo macluul nafla ah oo xanuuno soo wajaheen. Saasoo ay tahay aysan jirin libaax ku soo dhiiran jiray ama awooday inuu boqortooyadiisa kala wareego. Sidoo kale way ka baqi jireen libaaxyadu asaga oo naf ah oo caatadiisa ay yaabisid oo xaalkiisu adag yahay. Scarface wuxuu dhintay 11 June 2021. Scarface qisadiisu aad bay u badan tahay intaana awooday inaan idiin soo tabiyo. Idinkuna waa idinkaga mahadcelinaya sida sharafta leh aad u dhageysateen.